السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يانيقو عبد الولي محمد ومشهد كبرتان برشادة كمبيوتركا iyo sidoo kale multimedia haddaba muuqaalkani waxaan ku baran doonaa sidee ayaad portrait ugu qaadi kartaa qof adigoo isticmaalayo mobilkaaga haddii aad tahay qof xiiseynaya casharadan fadlan inoo subscribe garee channelka sidoo kale inoo like garee muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno anigu waxaan nahay qofkii ku baray adiguna waxaa tahay qofkii baran lahaa haddaba inaad isticmaasho mobilkaaga kuna isticmaasho sawir ah portrait ugu horeyn waa maxay portrait waa sawir qofkii oo taagan kadibna gadaal aad ka dareemaysid wax lagu magacaabo depth field oo ah sawirka qaybtiisa gadaal inuu noqdo blur adigana aad noqoto sawir qofka caadiga ah oo ama standardkiisa uu aad u qurxoon yahay haddaba marka si aad qaabkaas u qaado waxaad u baahan tahay qaabka soo socota kow in uu leeyahay mobilkaaga qaabka lagu magacaabo portrait labo waxaad u baahan tahay qofkii marka aad rabto inaad ka qaado portrait waxaa qasab ah backgroundka iyo subjectiga qofka in ay kala sigtaan ilaa iyo 1 mitir ama 1 mitir iyo bar tusaalo qofka halkan markay uu taagan yahay ha ka qaadin isla markii sawirka sidiisa ugu qaadin adoo isticmaalayo portrait si aad u samayso marka waxaad tirinaysaa 1 2 oo kale ayaad leedahay qofkii aad leedahay marka kaale qofka halkan istaajinaysa qaabkii uu u baahan yahay ama styleka uu u baahan yahay ayaad u istaajinaysaa okay adiga qaab qurxoon u istaag yarkan sidaan uu inoogu istaaga okay kadib maxaa sameeynaa marka mobilkaaga ayaad waxaad furanaysaa kaamirada marka aad furato inta aadan sawirka qaadin marka ugu horreyn waxaad u baahan tahay mobilka qaybtiisa lensiska inaad qabato oo aad masaxdo si ay kugu sahlanaato marka because of maanta dhan mobilka gacantaad ku haysataa waxaa dhici karta inay farta kaaga aado waxaa dhici karta in waxyaalo badan possible ah saas darteeda marka qabo iska masax marka sida tan u masaxdo oo maro nadiif inkastoo aniga hadda aanan haysanin laakiin waxaan haysanaa fanaanada ama shaatiga wixii markaas aad wadatid laakiin ha isku dayin wax lensyadan ee aad ka dareemaysid inuusan ku gaareynin wax wasaqa okay waxaan sameynaynaa marka waa aan masaxaynaa okay waa inoo nadiif kadib maxaan sameynaynaa marka waxaan tagaynaa meesha ay ku qoran tahay more markii aan tagno kadibna halkan waxaan ka raadinaynaa meel ay noogu qoran tahay portrait marka portraitka ayaa dooranaysaa portraitka marka aad dooratid qofkii wuu ii taagan yahay because you don't need inaad saan u gediso why do you need it because of waa inaad sidatan u qabataa oo aad ama sidan u qabataa please sidan ha u gedinin waa waxyaalaha dadka fashionka ma aqaan meesha ka gashay laakiin waa mamnuuc because of qofka waxa la rabaa marka sidatan u qabatid waxa dareemaysaa qofka inuu sidatan u weynaanayo ama sidatan inuu u weynaanayo mamnuuc waay okay qofkii wuu inoo taagan yahay portraitka wuu inoo dooran yahay okay stosian leenahay waad u jeedaa marka backgroundka iyo qofka subjectigiisa waa ay kala sikan yihiin okay waan dooranayaa marka fiiri qofkii ayaan dooranayaa wuu ii taagan yahay okay dhaxda ayaan qabtay because dhaxda waxaan u qabanayaa waxay tahay in aan log gareeyo what's the log waxa waaye waxaan rabaa qofka inuu ii noqdo wax lagu magacaabo smooth ama wax nadiif ah waayo haddii aad sidatan dhaho waad arkaysaa waxa circle yar oo jaallo ah ayaa wuxuu iigu jiraa qofka laga rabo marka inaad sawirto because of haddii halkan aan taaganahay ama gadaal aan fookaha saaro qofkii ayaa wuxuu noqonayaa blur backgroundka ayuu wuxuu noqonayaa nadiif marka anigu waxaan rabaa inuu subjectiga nadiif ii noqdo backgroundka dambena uu ii noqdo blur okay qofkii ayaa sidatan ugu aadinaya qoortaada wax yar toosiya leedahay okay sidatan markaad u taagan tahay waxaad samaynaysaa marka waa dooranaysaa waa aad haynaysaa markii aad haysid waa arkaysaa marka sensitivityga aad u badan yahay marka wax yar ayaad yareynaysaa maximum 5 oo kale ayaad ka dhiganaysaa okay ilaa iyo 4 is okay kadibna waxaa leedahay marka take a shot sawirka ayaan qaadnay okay sawirka markii aad qaadid waxaa arkaysaa marka sawirka process uu wadaa qaybta hoose haddii aan ka fiirino process uu inoo wadaa waxaa arkaysaa marka qofka inuu yahay wax nadiif ah laakiin backgroundkiisa dambe inuu yahay blur waxaa awood u leedahay marka inaad change background effects inaad samayn kartid saas darteeda marka maadaama anaga aan edit dhahnay waxaan rabaa marka blur backgroundkii aan isticmaalaynay inaan ku darsan karno blurkii aan u baahanahay waayo hadda markaan dhaho 7 waa arkaysaa backgroundka dambe oo dhan totally waa blur okay hadda waxaan isticmaalaynaa ama mobilka isticmaalaynana waa A52 okay mar labaad aan ku celinaynaa okay
okay waa arkaysaa shaashadda waxay ugu soo qoray ready oo ah inuu diyaar u yahay inuu sawir ka qaado okay ready-ga qoortaada wax yar dhinac kale u jibi ha beautiful okay kadibna waxaan leeyahay take a shot okay sawirka ayaan dooranaynaa okay waxa arkaysaa marka subjectiga iyo blurka backgroundka dambe inay yihiin laba sabir aanan islahayn marka sometimes waxa dhici karta marka sabrada noocan oo kale inaad u isticmaali karto inaad dhigan karto dhinaca Facebooka asigoo ka saacidayo marka inaad u samaysan karto wax lagu magacaabo 3D marka please waxaan ka waanin lahaa ugu horeyn kow inaad masaxdo mobilkaaga lensigiisa laba inaad hubiso qofka meesha uu taagan yahay ama qofka aad sawiraysid meesha uu taagan yahay iyo meesha ka dambayso inaysan islahayn oo ay aad u kala fog yihiin tusaale ahaan inuu qaadan karo 2 talaabo ilaa iyo 3 talaabo because of hadda sidaan markaa uu yahay haddii aan dhaho waxyar hore u soo siko okay waa arkaysaa marka hadda distance dheer ayaa u dhaxeeyo mar kale ayaan sabir qaadaa anagoo isbarbar dhigayna marka sabirka hore blurka uu sameeyay ama depth fieldiga uu sameeyay ee sabirka dambe depth fieldiga uu sameynayo farqiyada u dhaxeynayso okay mar kale ayaan sabir qaadaya okay waxaan qaadnay marka sabirka labaad ayaan qaadnay okay waxaan qaadnay sawirka labaad waxa arkaysaa process oo wada waa arkaysaa marka sawirkii hore waa sidaan darbiga waxa dareemaysaa inuusan ahayn macnaha blur saxda ama depth field fiican inuusan haysanin laakiin sawirka dambe waxa dareemaysaa inuu haysto depth field aad u muhiimsan saas darteed marka maanta waxa baratay sidee mobilkaaga aad ugu qaadi kartaa portrait anaga hadaan isticmaalayno A52 waad isticmaali kartaa mobil alaala mobilkii aad haysatid haddii ay dhacdo mobilkaaga inuusan lahayn fadlan isku day fristiga inaad update garayso labo inaad hubiso inuu leeyahay haduusan ku lahayn isku day inaad raasi kartid mobil markaas qaadi karo portrait guntii iyo gabagabadii ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe garayso channelka sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo gelino waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh